cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam gabadhii reer madiina ayaa nabigeena u timid haweenay reer madiina ah markaabay nabigeena ku tiri nabi allow dambiba aniga iga dhacay dambiga iga dhacayna wax kala maahina xumaan baan la yimiday calooshaydiina ilma ayaa maaragtaana ii galabay tidhee aniga xadka in lay mariyaan hadda diyaar u ahay aakhira in laygu cadaabo diyaar uma yihi dembigaan gale adduunka in laygaga gooyaan diyaar u ahee dembiga iga goobay ku tidhi gabadhaasi askari ma soo qaban cid dembigaa markay samaynaysay arkaysay oo soo sheegtayna ma jirine iimaankeegii alla ka cabsigeeda ayaa keenay oo mujtamacay ku dhex noolayd ee mujtamaca madiine ku noolaa ayaa ahaa mujtamac ilaahay ka baqaayo ku xisaabtamaya ilaahay baa ku arkaayo ilaahay baa ku maqlaya tuugu markuu rabo inuu waxado hadduu ilmo yar u jeedo dembiga uu ku socday uu ka joogsan wuxuu uga joogsan ilmaha yar baa maaragtaane ku sheegi buu leeyahay kii xumaanta iyo macsiyadda doonaya inuu sameeyo hadduu arkay ilmo yaroo ag taagan oo arkaayo u jeeda waxa uu leeyahay ilmaha yar baa sirtaada sheegi ilmaha yar buu markaa ayuu ka cabsoonayaa inuu sirtiisa uu sheego haddii qof uunan meeshaa joogin waxaa laga yaabaa tuuguna tuugada uu ku dhici lahaa zaaniguna zinada uu ku dhici lahaa marba haddaad ilmo yar baa arkaaya dembiga inaad ku dhacda aad uga joogsatay ilaahay baa arkaayana dembiga aad uga joogsan weyday waxaad ogaataa waxaad ka dhigtay allihii ku abuuray kuwa wax eegaya ka ugu liitaad ilaahay ka soo qaaday markaas mujtamac madiina ku noolaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku barbaariyey oo la baray ilaahay baan qof walba u jeeda ilaahay baa ku arkaayo ilaahay baa ku maqlaaya dadna markaas mid walba noloshuu ku noolaa waxaa dhacday markaa ilaahayna inuu ka cabsoodo allihii abuureen inuu ka xishoodo kii miiga joogaa dhacday ilaahay inuu ka xishoodo ka cabsoodo kii magaalo jooga hadduu dembi sameeyo waxaa dhacday inuu markiiba nebiga intuu u yimaada sida haweenayda ay yidhaahdaan nebi allow dembigaasaa iga dhacee aakhira anigu diyaar uma ihiyo cadaabka aakhira ma xamili karaye adduunka ha laygaga gooyo haweenayda nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi aabbaha iigu yeedh aabbaheed bay u yeedhay markaa buu nebigu uhi gabadhan si fiican u hay oo dhaqaalee ceebteedana ummadda ha u sheegin maalinta ilmaha ay dhashana ii keen buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeedna markaaba ilmihii iyadoo wadatay nebiga u timiday haddana celi buu nebigu yidhi ilmaha soo nuuji markaad soo nuujisay naaska aad ka gudhiso haddana adiguna markaa ii soo noqo ii kaalay ilmahaygii oo cunto cunaaya ayadoo weliba tusinaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilmahaasi inuu haddeetoole iskii cunto uu u qaadan karo ayay nebiga u keentay u timiday markaa buu nebigu yidhi iyadii ilmahayga kala qaada waa la kala qaaday tiirkaasaa lagu xidhay ayadoo dharkeedii qabta ayaa dhagax lagu dilay waana sidii sharcigu ahaabaa la mariyey salaataljanaasadeedii markuu nebigu yidhi ha ku tukatid ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar baa joojiyo ku yidhi masaaniyadan zinaysatay ilmahan dhashay waad ku tukanaysaa nebi allow markaa buu nebigu yidhi yaa cumar gabadhaasi way toobad keentay toobad 70 inuu reer madiina haddii loo qaybiyo ku fillaan lahayd buu rasuulku yidhi cid soo qabatay ma jirto laakiin halkana kamera ugu rakiban tahay waxaa laga dhaadhiciyey ilaahay uu ku arkaya uu ku maqlayaa aakhirana waa lagu xisaabin doonaa khilaafadii cumar bnu khadaab abubakar sidiiq radiallahu canhu markii abibakar talada ummadda loo dhiibay ayuu abubakar qaadiyulqudaat waxa uu ka dhigay cumar bnu khadaab buu ka dhigay 6 bilood markuu booska uu hayo waa maxkamadda qaadiga ugu sarreeyey ayuu cumar soo celiyey shaqadii marka abubakar buu u keenay maxaa dhacay buu ku yidhi yaa amiir yaa cumar ma shaqadan kuu dhiibay baad yaraysatay may shaqadaadii dhiibtay waa shaqo weyn laakiin abubakar oo waxaan kuu sheegayaa 6 bilood ee halkaa aan fadhiyey 2 qof oo isaysatay iiman ummadani xaqi ilaahayna way garatay xaqii dhexdooda yaalayna way garato way ilaalisay xaakim ummadan ilaaliyo uma baahnee cabsida ilaahay ummadani ay ka baqayso ayaa mid walba xaqiisii ilaaliyee shaqadan iga qabsa buu wadi cadalaysaay bismillaahi arrahmaani arrahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاتقوا النار ولو بشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام
إلهي بان mahadnaqaynaa kulanka diineed inaga soo qayb galiyay annagoo ka kala imana meelo kala duwan meelo kala fogfog waana tawfiiq ilaahay azza wa jalla qofuu khayr la doono ayaa ilaahay meelahan oo kale ilaahay uu keenaa inaad diin aad ka hadashaa oo diin aad dhagaysataa oo meel diin lagu hadalhaya aad tagtaa adiga xaggaaga maaha oo xagga ilaahay waa inaan ilaahay dhammaanteen aanu mahadnaqno weeyaan oo nimanka walaalaheena akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulanka inoogu yeedhay ayakana waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay camalkooda inuu ka aqbalo ee miisaanka xasanaadkana ilaahay uu ugu daro kule culammadu waynala hadleen waanala hadli doonaan diinta hadalkeeda oo dhanna wuxuu ku soo dhammaadaa waa ilaahay ka cabso ilaahayna cibaadadu inoo abuuray cibaadada qaayaheeguna waa alla ka cabsi yaa ayuha annaasu ucbuduu rabbakum alladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacallakum tattaquun baa ilaahay yidhi dadkoo dhan baa ilaahay la hadlayaa wuxuu leey dadow ilaahayna abuuray caabuda ininkoo keliya maaha macal kuwii inaga horreeya adduunkan imidayna ilaahay unba abuuray khaaliqu waa mid keliya makhluuqu ha fara bataan oo ha nuucya bataan laakiin khaaliqu waa mid keliya cibaada ilaahay noo abuuray inaan isaga caabudno oon isaga ka cabsoonno oon isaga weynayno oon isaga jeclaanno cibaadada qofku markuu la yimaado waxuu ka dhaxla waa alla ka cabsi alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj wma tafcaluu min khayrin yaclamuhu allah wtazawaduu faina khayra zaadi taqwa xajkii axkaamtiisii baa ilaahay kaga soo warramay aayaddaas waxaa lagu soo gabagabeeyey xajka qaayihiisu waa alla ka cabsi cibaadada qaayaheegu waa alla ka cabsi soonka la soomayo qaayihiisu waa alla ka cabsi sadaqada la bixinayo qaayaheegu waa alla ka cabsi kulanka diinada laynoo qabtay ee culummada nawcadinaysa qaayuhu waa alla ka cabsi ilaahayna abuuray inaan ka cabsanno oon ka baqno unba adduunka laynoo keenay ummadii hadday dumaysana waxay ku duntaa waa marka ilaahay abuuray ay garan weyda ummadii way dumi ummad haddii la doono in la dhisana waxaa lagu dhisaa allihii abuuray baa dadka la baraa dad haddaad aragto dad ilaahay garanaya oo ilaahay jecel oo ilaahay ka cabsanaya oo ilaahay rajaynaya oo ilaahay rumaysan oo ilaahay mar walba inay raalli geliyaan ku dadaalaya haddaad aragto dadkaasi way dhismayaan dad haddaad aragto ilaahay aanan ka cabsanaynin weliba u malaynaya ilaahay inuusan arkaynin markay dunuubta ay samaynayaan waxaad ogaataa mujtamacaasi uu ku daayo uu dumay ka dhigan tahay lidaalika nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ummaddan markuu nebigeennu uu dhisaayey meesha uu ka soo bilaabay dhismaha dadka ayuu horta ilaahay baray taajirkiibuu ilaahay ku xidhay faqiirkiibuu ilaahay ku xidhay xaakimkiibuu ilaahay ku xidhay haweenkiibuu ilaahay ku xidhay dhallinyaradiibuu ilaahay ku xidhay mujtamaca wuxuu nebi maxamed uu diyaariyuu hagaajiyey la dareengeliyey oo laga dhaadhiciyey ilaahay baa ku leh waxaad haysatana ilaahay baa ku siiyey waxaa kaa maqanee tabanaysana alla uunbaa kuu haya ilaahayna waa kuu jeedaa uu ku arkayaa uu ku maqlayaa ee ilaahay ka cabso innagu haddaan dadka luqada soomaaliga ku hadla aan nahay wadaad markuu ina wacdiyeen uuna yidhahdo ilaahay ka cabso waxaa laga yaabaa jawaabta inaan keenna markiiba soonnaka ilaahay ka cabsanna ma ilaahay haddaan ka cabsoonayno been ma sheegneen
ilaahay haddaan ka cabsoonayna salaadu inama dhaafteen ilaahay haddaan ka cabsoonayna dulmi ma geysaneen ilaahay haddaan ka cabsoonayna dadka ma xamaneen ilaahay haddaan ka cabsoonayna ummadda iskuma dirneen ilaahay haddaan ka cabsoonayna dhallinyaradu siday rabto uma socoteen sida ilaahay rabaan u socon lahayn haddaad ilaahay garanaysid waxaad ogaan lahayd macaasi kuma dhacdeen cabsida ilaahay waa fareem gaadhigu hadduu bilaa fareem uu noqdo meel walba uu jiidhi qofku hadduu alla ka cabsi uunan lahayn meel walba uu jiidhi taqwadda ayaa nolosha bini aadanka qurux badnaysa waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra qofalii qofka ilaahay ka cabsadee rabbigii ka baqa nolosha dhanba ilaahay wax uga dhigayaa fudayd buu ilaahay uga dhigayaa maanta dad badan baa nolosha ka cabanayo nolosha waa nagu adayg waxa nolosha adkaynaya waa iimaan la'aan waa alla ka cabsi la'aan waa diinta oo laga dheeraada nolosha ku adkaataa hadday dadku ilaahay abuuray u dhowaadaana ilaahay xidhiidh fiican la yeeshaan oo ilaahay casa wajalla ay ka cabsadaan nolosha inta kaleo dhanna way noo dhib yaraan qawaamu dunya arbaca cilmu alculamaa وعدل الأمراء وسخاء الأغنياء ودعاء الفقراء لولا علم العلماء لهلك الناس بالليل لهلك الجهال ولولا عدل الأمراء لأكل بعضهم بعضا ولولا سخاء الأغنياء لهلك الفقراء ولولا دعاء الفقراء لهلك الأغنياء adduunka dhanba waxay culimmadu yidhahdeen afar bay ku taagan tahay afar tiir cilmiga culammada iyo cadaaladda madaxda iyo deeqsinnimada dadka maalqabeennada iyo ducada fuqaradu ay ducaynayaan afartaasee adduunka dhanba uu ku taagan yahay cilmulculamaa caalimka cilmigiisu inuuna anfaco waa inuu caalimku noqda caalim ilaahay ka baqayo khashyo leh innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa cadluumaraa madaxdu inay cadaalad samayso waxay u baahan yihiin inay ilaahay gartaan marka u horraysa hadday ilaahay ka baqaana ilaahay ay gartaan cadaalad bay la imanayaanoo way cadaalad samaynayaan hadduu qofku ilaahay uusan garanayn cadaalad samayni maayo dulmi baa noloshiisa ka soo bixi haddii ninka maalqabeenku ilaahay uunan ka baqayna xoolaha wuxuu moodi isagu inuu cilmigiisa uu ku keenay qaala innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii qaaruun calayhi lacna ayaa lagu yidhi sakada xoolahaaga ka dhiib wuxuu yidhi xoolahan nebi muuse uu bixi uu leeyahay aniga xoolahan ilaahay ima siina aqoon iyo karti anuu aan leehay ayaan xoolaha ku keenay buu yidhi qofku hadduu alla ka cabsi uunan lahayn xoolihiisa wuxuu u malaynayaa inuu karti uu ku keenay hadduu laakiin ninka maalqabeenku alla ka cabsiyo iimaan uu leeyahay waxa uu garanayaa nicmadan ilaahay inuu u dhiibtay deedna lagu eeganayo la eegaya meeshuu ku bixinaya meesha kale deedna xoolihiisii meesha wanaagsan buu ku bixinayaa faqiirku hadduu ilaahay ka cabsoonayo faqiir wuxuu noqonayaa cafaafle oo dhowrsoon oo baahidiisana bini aadanka ka qarsanaya buu noqonayaa haweenku hadday ilaahay ka baqaan noloshoodoo dhan baa toosaysa cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam gabadhii reer madiine ayaa nebigeenna u timid haweenay reer madiine ah markaabay nebigeenna ku tiri nebi allow dembiba aniga iga dhacay dembigaa iga dhacayna wax kala maahina xumaan baan la yimiday calooshaydiina ilmo ayaa maaragtaana ii gala bay tidhee aniga xadka in lay maryaan hadda diyaar u ahay aakhare in laygu cadaabo diyaaruma yihi dembigaan gale adduunka in laygaga gooyaan diyaaru ahee dembiga iga goobay ku tidhi gabadhaasi askari ma soo qaban cid dembigaa markay samaynaysay arkaysay oo soo sheegtayna ma jirine iimaankeegii alla ka cabsigeeda ayaa keenay oo mujtamaca ay ku dhex noolayd ee mujtamaca madiine ku noolaa ayaa ahaa mujtamac ilaahay ka baqaayo ku xisaabtamaya ilaahay baa ku arkaayo ilaahay baa ku maqlaya tuugu markuu rabo inuu waxado hadduu ilmo yar u jeedo dembiga uu ku socday wuxuu uga joogsan ilmaha yar baa maaragtaane ku sheegi buu leeyahay kii xumaanta iyo macsiyadda doonaya inuu sameeyo hadduu arkay ilmo yaroo ag taagan oo arkaayo u jeeda
waxa uu leeyahay ilmaha yar baa sirtaada sheegi ilmaha yar buu markaa ayuu ka cabsoonayaa inuu sirtiisa uu sheego haddii qof uunan meeshaa joogin waxaa laga yaabaa tuuguna tuugada uu ku dhici lahaa zaaniguna zinada uu ku dhici lahaa marba haddaad ilmo yar baa arkaya dembiga inaad ku dhacda aad uga joogsatay ilaahay baa arkayana dembiga aad uga joogsan weyday waxaad ogaataa waxaad ka dhigtay allihii ku abuuray kuwa wax eegaya ka ugu liitaad ilaahay ka soo qaaday markaas mujtamac madiina ku noolaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku barbaariyey oo la baray ilaahay baan qof walba u jeeda ilaahay baa ku arkaya ilaahay baa ku maqlaaya dadna markaasaa mid walba noloshuu ku noolaa waxaa dhacday markaa ilaahayna inuu ka cabsoodo allihii abuureen inuu ka xishoodo kii miiga joogaa dhacday ilaahay inuu ka xishoodo ka cabsoodo kii magaalo jooga hadduu dembi sameeyo waxaa dhacday inuu markiiba nebiga intuu u yimaada sida haweenayda ay yidhaahdaan nebi allow dembigaasaa iga dhace aakhira anigu diyaar uma ihiyo cadaabka aakhira ma xamili karaye adduunka ha laygaga gooyo haweenayda nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi aabbaha iigu yeedh aabbaheed bay u yeedhay markaa buu nebigu uhi gabadhan si fiican u haya oo dhaqaale ceebteedana ummadda ha u sheegin maalinta ilmaha ay dhashana ii keen buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeedna markaaba ilmihii iyadoo wadatay nebiga u timiday haddana celi buu nebigu yidhi ilmaha soo nuuji markaad soo nuujisay naaska aad ka gudhiso haddana adiguna markaa ii soo noqo ii kaalay ilmahaygii oo cunto cunaaya ayadoo weliba tusinaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilmahaasi inuu haddeetoole iskii cunto uu u qaadan karo ayay nebiga u keentay u timiday markaa buu nebigu yidhi iyadii ilmahayga kala qaada waa la kala qaaday tiirkaasaa lagu xidhay ayadoo dharkeedii qabta ayaa dhagax lagu dilay waana sidii sharcigu ahaabaa la mariyey salaataljanaasadeedii markuu nebigu yidhi ha ku tukatid ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar baa joojiyo ku yidhi masaaniyadan zinaysatay ilmahan dhashay waad ku tukanaysaa nebi allow markaa buu nebigu yidhi yaa cumar gabadhaasi way toobad keentay toobad 70 inuu reer madiina haddii loo qaybiyo ku fillaan lahayd buu rasuulku yidhi cid soo qabatay ma jirto laakiin halkana kamera ugu rakiban tahay waxaa laga dhaadhiciyey ilaahay uu ku arkaya uu ku maqlayaa aakhirana waa lagu xisaabin doonaa aakhiradii baa ku weynaatay qalbigoodii ilaahay baa ku weynaaday qalbigoodii dadna markaas waxaa dhacday qof walba inuu markaa noloshii adduunka ilaahay uu kaga cabsoodo mujtamac hadduu ilaahay ka baqo waxay helayaan nolosha adduunyadu janno inoo noqon nolosha adduunyadu jannay noqonaysaa goormay janno ku noqon waa marka dadku ay ku noolaadaan diin markay ku noolaadaan alla ka cabsi markay ku noolaadaan xishood markay ku noolaadaan ilaahay bay arkayo ee maqlaaya markuu qof kastoo muslima uu garto cid dadka dulmida ayaa la waayi khilaafadii cumar bnu khataab abubakar sidiiq radiyallahu canhu markii abubakar talada ummadda loo dhiibay ayuu abubakar qaadiyulqudaat waxau ka dhigay cumar bnu khataab buu ka dhigay 6 bilood markuu booska uu hayo waa maxkamadda qaadiga ugu sarreeyey ayuu cumar soo celiyey shaqadii marka abubakar buu u keenay maxaa dhacay buu ku yidhi yaa amiir yaa cumar ma shaqadan kuu dhiibay baad yaraysatay may shaqadaadii dhiibtay waa shaqo weyn laakiin abubakar waxaan kuu sheegayaa 6 bilood ee halkaa aan fadhiyey 2 qof oo isaysatay iiman ummadani xaqi ilaahayna way garatay xaqii dhexdooda yaalayna way garato way ilaalisay xaakim ummadan ilaaliyo uma baahnee cabsida ilaahay ummadani ay ka baqayso ayaa mid walba xaqiisii ilaaliyee shaqadan iga qabsa buu waad cadalaysaaye ummad halkal ay ka duntaa waxa weeyaan waa qiyamka akhlaaqiga iyo iimaaniyaadka dad aragtid mujtamac ilaahay ka xishoonayn kana cabsanayn siday doonaanna u dhaqmaya haddaad aragto wuu dunsan yahayba mujtamacaas mujtamac jira maaha haddii sifaadka daakhiliga ee gudaha bini aadanka kaga jira cabsida ilaahay ay ka mid tahay mujtamac ay ka baaba'aan qiyamka daahiriga muuqaalkuna waa ka dumaya si walba saadarteed baa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam 3 sannadood ummadda waxuu ka soo dhisayay iimaaniyaadka waliba sirran 10 sanana nebigu ummadda wuxuu ka dhisayay iimaaniyaadka calanan
13 kaasana waa xayaat makkiya baa la yidhahdaa qur-aanka makka ku soo degay nabigeena calayhi salaatu wasalaam intuu makka joogayna ummadda waxa uu ka dhisayay iimaanka iyo caqiidada laga saxayay 13 sano oo makka la joogay soon iyo zako iyo sadaqad iyo xaj iyo xijaab axkaamtaasi waa axkaam madaniya madiina ku soo degtay dadkii shareecadan islaamka xambaarayay ee diintan maaragtaane garanayay qiimaheega ayuu nabi maxamed makka intuu joogo ayuu soo dhisay يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليغدفن في قلوبكم الوهن قيل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت waxaa dhowbu nabigu calayhi salaatu wasalaam waaqaca maanta aan taaganahay ayaa nabi maxamed 14 qarni ka hor ayuu nabigeenu ka sii waramay uu leeyahay waxaa dhowbu nabigu leeyahay imani doonta xilli dadku markay cuntada ay cunayaan sida xeedha ay dusheeda ugu kulmaan ay hareeraha uga soo fadhiistaan in cadowgu dhinac walba inaga yimaada imani doonta buu rasuulku yidhi saxaabi kamida saxaabadaas rakaco yidhi maalinta acdaada islaamku ay dhinac walba naga soo fadhiisan doonaan ee sida xeedha loo cunay loogu ururo ay noo cuni doonaan miyaan yarnahay nabi allah maalinta ma tira yariba markaa buu nabigu yidhi may maalinta waad badan tihiin buu nabigu yidhi waad badan tihiin laakiin xun baa tihiin buu daad xoor baa tihiin daad xoor waxaad macna leedihiin ma jiro markaasuu nabigu yidhi walaa yanzicanna allahu waliba ilaahay uu ka siibi oo uu ka siibi muxuu ka siibayaa cadowgiina laabahooga haybadii ay niga haybaysan jireen waa laga siibi buu nabigu yidhi inninkana wahni bay nagu dhici doona wahni markaasay yidhahdeen asxaabta wahniga noo sheeg haddana waa maxay wuxuu yidhi adduunyada ayaad jeclaanaysaan dhimashadana waad dhibsanaysaan buu rasuulku yidhi inaad noolaataan baad jeclaanaysaan inaad raaxaysataan baad jeclaanaysaan inaad iska ciyaartaan baad jeclaanaysaan dhimashada iyo aakhirana waad karhaysaan buu rasuulku yidhi labada cudur maalintuu inagu dhacana waxaad noqonaysaan buu nabi maxamed ina leeyahay waxaad noqonaysaan xumbadan daadka ayaad la mid noqonaysaan oo qiimo ma lihidin xumbada daadku markuu yimaadana wax buuran weeyaan xogaha yar kadibna dabayshu markay timaadana way baaba'daa waxaad qiimo tiradiinnu waa badan tahay weeyaan cadadkiinnu ma yaro cudadkiinnu ma yaro dhaqaalihiinnu ma yaro kaantitee xagga tirada waad badan tihiin laakiin kayfiyadda xagga tayadiinna yar bay ka dhigan tahay ilaahayna tiro badan eegi maayo dadka ilaahay waxa uu eegayaa iimaaniyaad kale dad ilaahay ku xidhan baa ilaahay eegayaa kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kasiiratan biidni illaah wallaahu maca asaabiriin وجماعة طالوت في سورة البقرة أي إلهي جل وعلا وكجور مجلسك قدام بيا وحي هاي سيدتهم كم بي هايان بقر جوجي طالوت أي كوك أسبان إن جهاد أي أبحان إيكون تربية دوبين أون المارك تاني اسمن أي هذا النصار أو نصار ده نمرقاسو كرهم بمرقا كوبحي uu kaxeeyay markay banaanka ay marayaan meeshii gaalada dagaalka ay ku galayeenna wali aanan la gaarin ayaa waxa hortooda ka soo baxay webi biyo ah webiga biyaha soo baxayana waliba boqorka u sheego ku yidhi inna allaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi hortiina webi durduro xareeda ayaa ka soo bixi doona qofka biyaha cabba aniga kaasi raaci maayo uu iga hadhay ka mar uun qaata ee hunguriga ku qoyana waa macayga ka biyaha isagu aanan dhadhamin ee xaggii jihaadku ka dhici lahaa ii raacay u socdana kaasina waa jamaacaddayduu ka mid yahay buu yidhi waxaa loo sheegay inay 3 qaybood u kala bixi doonaan qolo biyaha dul fadhiisata oo maadada ayay aaminayaan weeyaa macnuhu mushaahadaad waxay arkayaan bay rumaynayaan iyo qolo maaragtaan biyaha qaadanaysa mar kaliya oo hunguriga uu ku qoyni doonta iyo qolo saddexaad
oo leh may biyahan oonka ma biinayaan oonka ilaahay baa keenay ilaahay baana biinaye annagu halku dagaalku ka dhici lahaa baan u dhaqaaqaynaa oo jihaadkaan galaynaa bay odhanayaan saddexda qole u kala baxayaan qur-aankaana ilaahay ku sheegay sidii loo sheegayay baa dhacday biyihii baa soo baxay hortooda iyakoo ooman jamaacaddii ugu horraysay waxay yidhaahdeen biyahani waa makhluuq oonka inay bi'iyaanna ilaahay amarkiisay u baahan yihiin deedna biyihii waa iska dhaafeen iyaku qoladii labaad iyaku waxay yidhaahdeen hal mar baan qaadanaynaa guriga dhuuniga ayaan ku qoynaynaa deedna waan dhaafaynaa iyakuna way socdeen qoladii saddexaad waxay yidhaahdeen biyahana oonka bi'inaye si fiican biyaha horta uga dhargi bay is yidhahdeen markaas deedna biyihii bay cabbeen mar allii markay cabbaan ee calooshoodii ay isleeyihiin biyihii calooshaadii si fiican bay u galeen waxaa dhacda marka in maaragtaanay in yar laba tallaaba markay qaadaanba oonka ku ziyaada haddana way soo noqdaan way cabbaan waxay yidhahdeen oonkii baa naga ba'ay in yar markay socdaan haddana waxay oonkiiba iya ku soo ziyaada way soo noqdaan bal waxaad u fiirsataa adigu qof maantoo dhan biyo cabbaaya calooshiisu intay leekaanaysaa jamaacaddaasi halkaa bay ku hadhay waxaana lagu qiyaasaa 76,000 baa ikhtibaarka ku dhacday imisaa baastay 4,000 oo keliya 4,000 waa laba jamaaco isla socota qolo biyaha darsato hunguriga ku qoysay iyo qolo tidhi biyahan oonka ma biyaan oonka ilaahay baa biya annagu waa soconayna biyo ma cabbayno markay israaceen ee dagaalkii meeshuu ka dhacayay ay wada yimaadeen jaaluut wuxuu wataa ciidan 200 oo kuna iyaguna waa 4,000 oo qof oo keliya ilaahay tiro ma eegayo ilaahay tayaduu eegaya jamaacaddii u horraysay biyaha soo kabatay waxay yidhaahdeen qaaluu laa taaqata lana alyawma bijaaluuta wa junuudihi waxay yidhahdeen ciidanka intan la eg 200 oo kun annagu maanta u jilib dhigi kari mayna bay yidhaahdeen walaakiin jamaacaddii yarayd ee biyaha aanan soo dhadhamin ee biyaha ka soo tallowday waa 313 ayay mufasiriintu ay ku sheegaan waxay yidhaahdeen may kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kaiiratan biidni illaah imisa ayaa koox yar ay ka guulaysatay koox tiro badan ilaahay idankiisana way ku guulaysatay ilaahayna mar walba waxa uu la jiraa dadka saabiriinta sabirka leh 313kaas oo nebi daa'uud calayhi salaam oo uu ka mid ahaa ayaa dagaalkii intay galeen raganimay ku galeen geesinimay ku galeen ictimaad cala allaahi bay ku galeen mushaahadaadkay nafiyeen ilaahay qudraddiisa iyo nidaamka qaybigay ku xisaabtameen waxay garteen dhib iyo dheef ilaahay baa haya ilaahay tacalluqa ilaahay la lahaayeen baa weynaa dagaalkii bay galeen deedna ilaahay kuwaasoo guushii uu siiyey markaa walaalayaal ilaahay tiro badan ilaahay eegi maayo ilaahay waxa uu eegayaa dadka muslimiinta iimaaniyaadkoogaa ilaahay eegaya wallaahu yuxibu asaabiriin ilaahay dadka saabiriintuu jecel yahay saabiriin maanta maan nahay ina allaha maca almuttaqiin ilaahay dadka taqwadaluu la jiraa muttaqiintii maanta miyaan nahay wallaahu yuxibu almuxsiniin dadka samafalka badan leh ayaa ilaahay mar walba uu jecel yahay samafal maanta ma leenahay wa ina allaha la maca almuxsiniin kuwa muxsiniinta ee khalqiga ilaahay ixsaanka u sameeya ayaa ilaahay macooga yahay waxa ilaahay maceenna uu ku noqonayaa waa sifaadka war wanaagsan weeyaan haddaan doonayna ummad inaan dhisna bay culimmadu leeyihiin waxaan ka dhisaynaa xagga iimaaniyaadka xagga akhlaaqda xagga cilmiga xagga sabirka xagga taqwadda xagga yaqiinta xagga tawakulka xagga tala saarashada ilaahay sifaadkaasee ummadii ay ku dhismaan haddaad aragteed mujtamac macaasida noloshoodu ay ku badatay macaasi maxaan ka wadaa salaad la'aantu waa macsiyo beentu waa macsiyo maaragtaane ballanbaajintu waa macsiyo xijaab la'aanta gabadha muuminaddu ay soconayso waa macsiyo dadka muslimiinta hadday qabyaaladda ay islaamnimada qabyaaladda ka kormariyaan dadkaasi waxay ka dhigan tahay weligood horumar ma gaadhayaan maxaa yeelay islaamnimadu waa inay wax walba kaala sarrayso ummad waxay ka dhisantaa waxa weeyaan waa sifaadka caqadiga iyo maaragtaane qiyamka wanaagsan ee akhlaaqda wanaagsan
taasaan u baahanahay marka inaan soo dhisno intay doontahay naga qaadato qarni ha qaadato 50 sano ha qaadato 30 sano ha qaadato annaga lanagama rabo saqfiga inaan keenno inaga waxa la naga rabaa inaan saaska si fiican u dhisno wa'ada Allahu alladhina aamanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun wa ballan maw'ud ya matlub kala jira maw'ud ilaahay waxa uu ballan qaadaya waxna ilaahay baa inoo ballan qaaday in ilaahay dadka muslimiinta dhulka inuu makansiin waa maw'ud ilaahay baa ku ballan qaaday khilaafada ilaahay inuu dadka muuminiinta gacantooda soo galin waa maw'ud ilaahay baa ku ballan qaaday wuxuu ilaahay ku ballan qaaday halka buu ku yaala shaki kama taagno ilaahayna ballanka ka bixi maayo bini aadanka ballanka ka baxo lagu yaqaan ballan baajin ilaahay sifaadkiisa waxa kamida لا يخلف الميعاد إلهي بلن هدو قادو إلهي بلن كيسا وابوحن لكن إنك وحالي نقربا أذيك يعني وحالي نقربا إن أساس نمارة مجتمع إيمان له عمل صالح له مجتمع إيمان له وحويا وأسبابها نمضة لقد نسو وإن كنا مجتمع إلهي كحرا مجتمع وإن كنا دين تودا إنت أنا آخرا لقاعدين أدونك دوشي كفايدي سنايا صدحدين النبي قال الشيخ عليه الصلاة والسلام يكو صعوته أيا قد بوريد بي مركا أيي كقلين بلد دحنا من الروب أما عدو بقى وين با مركا بورتا كالصوش الوضي لأن بورتا قد كيجي بورتا حيحري وصدحنن halkaasay ku jiraan markaasay cid ku ogi meesha ma jirto ilaahay uun baa ku oga cid kale kuma ogo markaasay isla hadleen oo waxay sidadeen maanta halka cidini badbaadin karta ma jirto ilaahay mooyaane bal nin walow amalka aad isleedahay amalkaasa maalinta aad ilaahay dartii u qabatay oo ma aragtaan amal saalixa oo ikhlaas aha aad isleedahay bal maanta ku alla bari buu halka amalka ha ka badbaadiyo maantaas kii horeeyba marka ducada bilaabay wa amalku nin walba ugu rajo weyna oo islaha amalkaas maqbuul hayo ilaahay ka aqbalay oo ikhlaas aha kii horeeyba ducadii furfurto wuxuu yiri ya rab waad ogtahay laba waalid baan lahaa oo da'wa weyn labada waalid iyakoon caanaha siiyo waraabiyo mooyaane ciyaalkayga cunto iyo caana ma siin jirin habeenada kamida xoolihii markay soo hoydeen in caanihii uga soo maalay ayaan caanihii la dul imiday waxaan arkay labadii waalidoo hurda ayaan arkay markaasaan gorofkii caanuhu ay ku jireen kor baan u qaaday ciyaalkayga iyo awlaadaydina jilbaha ay haystaan waxay leeyihiin aabba caanaha nasii markaasaan ku idhi nisiini maayo labadayda waalidoo horta iyaka aan siiyo mooyaane iyakana kicini maayo ilaa iyagoo hurdada ka soo kaca mooyaane habeenka oo dhan baan la dul taagnaa gorofkii caanaha ubadkaygina lugaha ay haysteen waagi markuu dhawaaday inuu bariyo ay labadii waalid hurdadii ka soo kaceen markaasaan gorofkii caanaha iyo kii siiyay kadib baan ubadkaygii siiyay ilaahow maalinka haddaan labadayda waalid aan sidaa ugu yeelay inaan adiga kugu raali geliyo ilaahow dhibaatada maanta aan ku jirno adaa naga saari kare ilaahow dhibta naga saar buu yiri markaas رضا الرب في رضا الوالدين هذا دونت إلهي رالين وكان نقضه لبدا هذا والد رالي قلي الضون المير ويلي قبل متكا دونت هو هذه لبدا هذا والد أي كو عرون أيام وعادوا قاتا إلهينا وكو عرون أوجو هذه لبدا هذا والد رالي أي كان نقضان إلهي بر رالي كأبي كديكنتا لأن مركان دقيقي أو دقاقي كي لباد بالليل هاي هذيكون الدعاء السكون الدعاء دي بو بلابي يا ربي وحاجرتي قبل إن أذيرتي وآذو قروح بدن قبل داس إنت أو جربان شو كان صدي وإسكاكي ديدين الحمان وجيستو بريها كمدا أبار بادولك كذا عدي أنا جو هنتي بدن هيستا أيه حلقة أبارات كوكسو هجاجي أيه ضباهم بيت مدي مرجاسان كويري وذوق تاين الآت كوش على بري نوادي ديدي ما تباهي بايكا كنتي قل كاين جليو لأنه واحد دونا كوكو سميني كدبنا واحد دون تحول عنك وكوسيني باهدي إيه كنت أمريكا قبردي واسكو قلاتي
baahi baa jirto abaar baa jirtay qolkii markaan la galay ee labadeeda lugood dhexdeeda aan fadhiistay halkaasna waa meel adag weeyaan ayay igu tidhi yaa ayuha rajul war addoonkan ilaahayow ilaahay ka baqo farjigayga xaaraan ha ku jabin bay igu tidhi xaaraan yaa markaan maqlay ilaahay ka baq markaan maqlay halkaasaan ka soo noqdoon ka kacay cabsidaadaan uga soo kacay maradii baan saaray iyadii daadna waxay xoola doonaysay oo dhan ayaan intoon u buuxiyey ayaan sabootiyey haddii maalinka cabsidaada halka aan ugaga soo noqday ilaahoo dhibaatada aan ku jirna maanta naga saar buu yidhi dhagaxiina uu dhaqaaqay kii saddexaad baa lagu yidhi adiguna ducadaadiiba hadhee ducadaada bilow isaguna ilaahay buu baryo wuxuu yidhi yaa rabbi waad og tahay addoon waxaan ahay dad badan shaqaalaysiin jiray dad badan baa ii shaqayn jiray maalin maalmaha ka mida markaan mushaarkoogii aan siisiinayay mid ka mida ayaa mushaarkiisii inuu qaatay iska diiday beri damboo abaari ay dhacday ayuu ii yimiduu yidhi war berigaa lacag baan kaaga tegay mushaarkaygiiyo mushqaayadaydiiyo isii markaasaan ku yidhi xoolaha maad arkaysaa waxaasoo geela waxaasoo lo'a waxaasoo adhiya adiga iska leh qaado markaasuu qaadan waayo wuxuu yidhi war maad igu dheeldheelaysaa abaar baa dhacdee oo adduunkii waa la kala guuree mushaarkii yaraan kugu lahaa iska kaysii markaasaan ku yidhi may kugu dheeldheeli maayo lacagtii berigii aad ka cadhooteed ka tegtay shirkadayda kambanigayga ayaan sheerkaaga dhigon kuugu daray wallaahi xoolahaasoo dhan adaa iska leh kaxayso markaasuu farxay uu duceeyey yaa rabbi buu yidhi kiina haddaan addoonka xaqiisii sidaa aan iskaga ilaaliyey anigoo adiga kaa cabsoonaya ilaahoo dhibaatada adaa naga saari karee ilaahoo dhibaatada naga saar buu yidhi dhagaxii uu dhaqaaqay saddexdood iyagoo nabad qabe halkii ka soo baxeen ayuhalmuslim diintaada hadday adduunka dusheeda wax ku tari weydo aakhare wax ku tari mayso ogow salaadaadu hadday adduunka ku anfacayn islaamnimadaadu haddaad adduunka ku cisoobayn iimaankaagiiyo taqwadaada haddaad adduunka dusheeda barakada iyo amni iyo cizi iyo gargaar ilaahay aad ku helaynin waxaad ogaataa diintaad haysatid waa suurada xaqiiqa maana diin xaqiiqaa doondoon waxa kulanka laynoogu qabanaya laynoogu yeedhay wax kale maaha aniga iyo ininku waa wada simannahay waxaa suuragalay ininku inaad iga diin fiican tihiin waxay culammadu ayna leeyihiin diinta maanta waan haysannaa waa ku dhalanay diinta islaamka laakiin kuma dhaqanno seen diinta markaa ugu dhaqannaa inaan diinteenna ku dhaqanno waxaan u baahannahay mujtamac inaan soo dhisna diiniya ilaahay waxa uu nagula xidhiidhayaa innakana waa diin waxaan ilaahay gargaarkiisa ku helaynaa waa diin waxaan nabadgelyada ku helaynaa waa diin waxaan ku guulaysanaynaa waa diin ummadnimadu waxay ku dhismaysaana waa diin marka waqtigii laga qabtay kolley waa joogaa ilaahay cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka allah inoo barakeeyo dardaarankaasi insha allah waa inoo socon doonaa culimmaduna way nala joogaan aniga lafahanteedana dardaarankaasi waan siinayaa inaan dib iskugu noqonno oo qof walba ilaahay cilaaqaadka uu la leeyahay inuu dib ugu noqdo waa dantayda waa dantaada waana danta mujtamaceenna amni iimaankana allah inoo ziyaadiyo cibaadadana allah inaga aqbalo kulankeenna kulankii awliyada allaha ka dhigo dadkeennaga bukana allah inoo shaafiyo waxay kurbaysan kurbada allaha ka faydo muslimiinta mustadcafiinta la laynayna allaha u gargaaro sala allahuma calaa nabiyina muxamed